xisbiga mucaaridka ah ee Ucud ayaa si rasmi ah u aqbalay murashaxiin ka sharaxan golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Maroodi Jeex iyo degmada doorashada Gabiley. Munaasabad u goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Ucud Engineer Faysal Cali Waraabe iyo saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee Ucud ayaa si rasmi ah loogu aqbalay murashaxiintan, waxaana ugu horreyn madashaasi ka hadlay murashaxiintii xisbiga mucaaridka ah ee Ucud uu aqbalay, kuwaasi oo taageerayaashooda ugu baaqay inay maalinta doorashada u codeeyaan isla markaasina ay isbarbar taagaan xisbiga mucaaridka ah ee Ucud. xisbiga Ucud oo maanta qalinka ku duugay markuu dhinac kastaba ka eegay in aan labadooda xildhibaan ee isku lamaan ama isku sidkan in uu qaato iyadoo beesheedii iyo cuqaasheedii iyo bulshadeedii iyo dadkaygiiba ay dhinacyada iyo galbaaba ay naga taagiin. waxaan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga iyo dhammaan xisbiga oo dhan aad iyo aad iyo aad iyo aad mahadsantihiin. waxaa nin ay ku hadhay ayay hawle haysaa maanta, waxay hawshu ku hadhay oo hawshu sugaysaa waa aniga iyo xildhibaankii kale baarlamaanka iyo bulshadii tolkay iyo asxaabtaydii iyo wixii ummadda aan gashanayba ayaa maanta jawaabteedii la helayaa oo ah in codka hiil iyo hooba laysla wada garab istaago. hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa gudoomiyaha xisbiga Ucud Faysal Cali Waraabe, kaas oo naga ogolaaday inaan u sharaxnaano golaha wakiilada iyo deegaankaba ee gobolka Maroodi Jeex, annaga oo soo buuxina shuruudihii looga baahnaa, isla markaana u guntan doona inaanu samayno cod wanaagsan oo xisbiga laftiisa dhiirigelin noqon doonta, taas oo nagu garab taagan dhammaan bulshooyinka gobolka Maroodi Jeex, gaar ahaanna dadka aynu matalayno. geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay odayaal, cuqaal iyo salaadiin ka mid ah beesha musharaxiintani u keentay xisbiga mucaaridka ah ee Ucud, kuwaasi oo uga mahadnaqay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Ucud sida uu ugu aqbalay oon ku soo saaro awood ku filan iyo israac midnimo ah. meel kastoo joogno aksho way midaysan tahay, farqiyo baydhbaydhay oo iska iman doona insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. Cali Waraabe oo isaguna mar labaad inaanu iska soo sharaxno xisbiga ma garanaysay cadaaladda iyo daryeelka inaan ogolaaday. ilaahay mahadi weeyi. waxaan leenahay labada ma garanaysaa xildhibaan ee beeshu ay soo dooratay, labada xildhibaanba waxaan halkan aan bulshooyinka akisho aan ugu gudbinayaa inaynu la garab taagno, inaynu isla garab taagno heel iyo hoo iyo ma garanaysay wada jir iyo ma garanaysay waxa la wixii inooga baahan yahayba inaynu heel iyo hooba isla garab taagnaano ayaan u gudbinayaa. labada xildhibaan ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada halkan ogolaanshaheeda iyo muuqaasheeda aanu ka shaacinayno. waxaanu leenahay beelweynta akisho iyadoo midaysan alxamdulillaah, hiil iyo hoo dhammaan inaanu dibad iyo gudo iska kaashanno kuna soo saarno. ilaahayna insha Allah bidillaahi kariim nagu asturo. mahad baanu u naqaynaa aad iyo aad thankful very much. dabeeto waxaan leenahay oo aan u sheegaynaa bulshaweynta aanu ka soo jeedno yar iyo weyn inay attention noqdaan oo u diyaar garoobaan sidii xisbiga ay ugu soo saari lahaayeen average sare. sidaasaan rajaynaynaa. hadalkiina waxaan u malaynay dacwaqaashii iga horreysay baaba mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.